munaasabadan oo ahayd mid hanaankeeda dhicitaan si heersare loo soo agaasimay isla markaana xadhigga lagaga jarayo dhismaha masaajidka iyo madarasada cusub ee laga hirgeliyay deegaanka Maroon oo hoos yimaada gobolka Daadmadheedh. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal, culimaaddin, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi. waxaana uu horeyntii halkaasi ka warbixiyay dhismaha masaajidkan iyo madarisadani odayaashii gacanta ku hayay dhismaha madarasada iyo masaajidka oo u mahadnaqay qurbajoog iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkan iyo madarisadani, isla markaana ku bogaadiyay inay bartaa ka sii wadaan dadaalkana u sii laabaan sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankaasi. masaajid iyo madarasad aynu dhamaadeen ugu horreyn waxaan ku soo dhaweynaa magaalada hay'adda saxaaba oo na soo gaarsiisay masaajidkan khayrka leh ee aan baahida weyn noo haysay. waxaan uga aad ugu mahadnaqaynaa mar labaad cidda muxsiniinta ee soo bixisay masaajidkan iyo ciddii hawlwadeedkeena soo gaarsiisayba mahad ballaaran baan u naqaynaa. waxaa kaloo mahadnaqayaa waan aad ugu mahadnaqaynaa qurbajoogta reerka iyo qolqoljoogta labadaba kuwaasoo qayb laxaad ka geystay dhismaha masaajidkan iyo malcamadan midii muuqata ee qiimaha qaayaha badan kuwaas oo ay qayb laxaad ka qaateen qurbajoogtu. aad iyo aad baan mahadnaqaynaa. ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro, ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. hawl weyn bay qabteen, hawl aad muhiim bay qabteen. waa ka maanta midhaheedu muuqanaya. waxa kaloo mahadnaqayaa ciddii ka geysatay qolqoljoog ka geysatay dadaalka juhdiga ku bixisay ee uu guura gashay ee uu galab carowday ee inay qabsoonto hawshaasi ciddii ku taageertay inay lacag ma shaqaysana ciddii ku taageertay u sacyiday iyana uga mahadnaqaynaa. hawlina intaa kuma dhammaan. waxaa sheegi doona wixii aan ka tegey odayga iga dambeeya ayaa ka warrami doona baahiyaadka iyo waxyaabaha loo baahan yahay. waxaa kaloo aanu meel iska dhignay oo naga reeban siyaasadda. arrintaa waxaanu leenahay dhismaha socda ee bilowgiisi kaa yahay qaybaha hadhayna odaygu inooga warrami doono muuse ka warrami doono inaan wax siyaasada ku jirin, cid siyaasad soo dhexgelisana aanaan ogolayn inay arrintaasi halkaa ka socoto. sidaa khayraadka maanta ay noogu horseedka yihiin qurbajoogteenu rag iyo dumarba ay maanta waddada wanaagsan inoo jeexeen oon aad iyo aad ugu mahadnaqayno. ilaahay inaan weydiimaysanaadka xasanaadka ugu daro wax siyaasad ayaana dhexgelin. masaajidkan khayrka badan iyo xafladiisa furitaankiisa ayaynu marka hore u mahadnaqaynaa. marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa sida odayaashu sheegeen hay'adda khayriga ah ee masaajidkaas oo baahi weyn magaalada cusub ay u qabtay oo Maroon noo soo dhammaystiray ilaa agabkiisa hawlwadeennadiisii ayaanu mahadnaqaynaa. agabkiisa uu dhan yahay masaajidka ilaa gogol ilaa mikrofoonadii ilaa maxay dhahaayeen marwaxadii. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qurbajoogta iyo cid kasta oo muxsiniin oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka iyo malcamadaba. anigu waxa kaliya aan raacinayaa waxa weeye wixii baahidu ma dhamaato waxyaabaha yaryar ee baahida ay hadhay baan raacinayaa ee loo baahan yahay in ayana la qabto. waxyaabaha waxa ka mid ah horta masaajidku waxa uu baahan yahay dayr buu baahan yahay oo haddii aan dayr lagu xidhin dabeeraha iyo xooluba way gelayaan oo gidaarkiisa ayay qodayaan. markaa wuxuu u baahan yahay dayr lagu wareejiyo masaajidku uu baahan yahay. malcamadu waa sidii horeba odaygu sheegay labadaba waa dhammaystiran. malcamadu waxay u baahan tahay lafteedu maxay dhahaayay dee macallinkii wax ka dhigi lahaa iyo qarashkiisii iyo ardaydii oo loo soo ururiyo oo deegaanka laga doonayo ayay malcamadu u baahan tahay. waxay kaloo u baahan tahay daryeel fara badan bay u baahan tahay in mar walba laga warhayo oo lala socdo xaaladda. waxaanu doonaynaa inay noqoto markis iyo kuraastii iyo miisaskii iyo wixii oo dhan bay u baahan tahay. marka waxay doonaynaa in jiil cusub ka soo baxo oo hadhow noqdo dee jiil dalka xukuma ama dadka wax u qabta. intaa waxaa kaloo aan ku daraya waxa weeyaan dhakhtarkii MCHkii way u baahan tahay meeshu laba maqsin oo uu leeyahay ama saddex maqsin oo uu leeyahay saldhig boolis laga dhigo way u baahan tahay. sababtoo waxa weeyaan meeshu dee meel fog bay ku taallaa uma dhawa wax cusbitaalo uma dhawa
MCHna uma dhawaa maxaa dhahay saldhigno marsaldhigood weynaa ugu dhow xaggaana xag salax baa ugu dhow maxaa dhahay xagga MCHkana waxa ugu dhow ood weyna iyo xag salax midoo waxa loo socdaa ilaa 17 kilomitir baa loo socdaa marka qofka halka markay dhibaato ku gaadho ama gabadha ay fool ku qabato waxa weeyaan inta la gaarsiinayo ama ood weyna ama xag salax waxa loola soo caray waa jiid dheer oo distance aad u dheer marka intaas waxa la yaaba dhici karta inay dhibaatooyinka ay dhibaato gaadho marka waxaan u leenahay dadka muxsiniinta ee qurbaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba cid kasto oo khayr doonaysa inay ka qayb qaadato dhismaha loo dhameeyo waxa la waxay barkad bay u baahan yihiin masaajidku oo lagu weysaysto weysada loogu maxay dhahay looga qaado leer buu baahan yahay oo loo kordhiyo maxay dhahay soolarada loo kordhiyo buu baahan yahay maxay dhahay wuxuu baahan yahay mu'adinka in laga warayo ninka masaajidka gacanta ku haynaya laga warayo uu baahan yahay marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha u baahan in garanaysaa in la iska la ogaado oo laga warayo qof kasta wax kara karaya oo reerka ama cid kasta oo muslimiin oo ay soo xagan karayaan in loo baadi doono iyo meeshaas aad ugu baahan tahay waana magaalooyinka dee magaca Maroon ku baxdo Maroon leedahay waana distance weyn bay leedahay deegaan weyn bay leedahay oo deegaan ah oo daaqay wanaagsan marka waxa la balliga laftiisa qodis buu baahan yahay oo in la qodo oo la dheereeyo dadna hadii loo helayo musharac la dhigo ayuu baahan yahay marka baayaha asaasiga oo dhan waxaan u leenahay cid kasta oo ka qayb qaadan karta sida horeba uga qayb qaadateen si wanaagsan uga soo qayb qaata waxoogaa qarash waxaan naga hadhay xaggii dhismihii Malcamda oo iyo xoogaa baan lagu leeyahay kaana waxaan doonaynaa insha Allah in la soo bixiyo cid bixin karaysa geesta kale iyaguna waxaa hadallo wacyigelin iyo dardaaran halkaasi ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi isla markaana u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkani iyagoo dadka deegaankana ku wacyigeliyay inay ilaashadaan dhismaha quruxda badan ee looga hirgeliyay deegaankaasi mu'asasada saxaaba oo fulisay noona keentay waxa weeye masaajidkan quruxda badan ee deegaanka u baahan walaalayaal masaajid waa meelaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay buqcadiisa oo nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu sheegay أحب البقاع إلى الله مساجدها النبي عليه الصلاة والسلام بقعدها إلى هاي وحوج عليها يعني أرلدي بقعدها وحوج عليها مساجدها وحاولوا نعبي هاي سوقية النبي عليه الصلاة والسلام مركا ماشى إلى هاي وحوج عليها مساجد أرلده صغوا ولا لا حتى لو سيك لا عليها هاي حاولوا وحوج عليها هاي مساجد هاي تخيل قلنا ودستي مساجدك يعد كستو وحكون درستي يعد كستو هوش محكي يرتوا وحاولنا نيل هاي مساجد كحسرات كذا كتر مساجد قديم هدي مساجد لنور دسوا إنه مساجد كي سيدو هاو وقابل وينه مساجد لنور دسوا حتى ترى ما يبص ساق الموضوع إنه شيء يسوي وحنقنا نلقى بهاي المساجد كعمرنا كنت كبرنا كنت كنا ديل عشرنا قيمها بدن أو مسجد كي ديجان كان أو مانتا aynu wada joogno furitaankiisa masjidka iyo qiimihiisa iyo wuxuu u baahan yahay iyo ilaalintiisa iyo in lagu cibaadeysto culimada ka hadli doona biidnillahi tacaala oo inala jooga kaliya waxaan tilmaami lahaa uun masjidkan waxaa ka qayb qaatay ama gacanta ugu weyn iska lahaa ama soo bixiyey مؤسسة أيضا كأركينا بوركن جمعية آفاق الخير الكويتية ورير كويتة ومحمد علي أحمد محمد كابه تلفزيون عالمي أريال